waxaad ogsoon tihiin caruur inay yihiin dad yaryaro oo hadda soo karaya oo jiilka soo socda noqon doono. waxay u baahan yihiin in la baarbaariyo, waxa la baro, xaaladooda caafimaad iyo daryeelkooda laga qayb qaato, waxbarashadooda laga qayb qaato, si hadhow markay qaangaaraan ay u noqdaan caruur oo waxtar u leh dalka, baarbaarintoodana aada u wanaagsan tahay. dastuurkeena wuu sheegayaa xuquuqda ay leeyihiin, shuruucda kale dalka u yaalana way sheegayaan xuquuqda ay leeyihiin. laakiin marmar waxaa dhacdaa caruurta in jihooyin kala duwan ay si qaldan ugu faa'iidaystaan, la baro maandooriyaal, la baro afkaar qaldan, kadibna khatar ay ku noqdaan mujtamaca oo Soomaalida ka kooban tahay. yacni taasi u dhacin waxaa loo baahan yahay marka qorshe in loo yeelo, shuruuc in loo yeelo, kadibna jidkii ugu habboonaa oo lagu baarbaarin lahaa laga soo bilaabo qoyskii caruurtaas ka imaadeen, aabbihii hooyadii, in caruurtaas sidii ugu wanaagsaneed loo baarbaariyo. waxaa dhici karta caruurta marka in dembiye iyo faldembiyeed ay ku kacaan, laamaha ammaanka ay ka mid yihiin CID-da oo halkana la fadhiido, iyo xeer ilaalintii iyo maxkamadihii iyo usluubtiiba inay lug ku yeeshaan. markaasaa loo baahan yahay marka in xaaladooda si gooni ah loo eego. caruurta markii laga hadlayo darajooyin iyay kala leeyihiin. yacni wixii 14 ka yar waa garan kartaan, waa caruur aada u yaryar. wixii 14 ka weyno ilaa 18 gaarayana waa marxalad oo ayadana qaangaarkii qeyb ka qaadanayo. kadibna 18 qofka markuu gaaro arrintiisa waa ay ka duwan tahay. shuruucdeena hore haddaad fiirisaan, xeerka iqaabta iyo sharciga da-yarta oo juvenile justice la yiraahdo oo aan leenahay, waxay sheegayaan 14 ilaa 18 waxaa waay da-yarta, waxaa waay baaristooda dembiyada iyo maxkamadaha horgeyntooda iyo xabsi ma ahe, laakiin waxaa waay meel oo lagu dhaqan celinayo in la geeyo. si cad ay ugu qoran tahayo habkii loo dhaqan celin lahaa, ciddii dhaqan celin lahayd kulli way ku qoran tahay. marka sharcigaasna weli waa jiraa oo waa dhaqangal. marka maadaama oo hadda ay soo baxday daahiradan oo caruurta in la caskareeyo oo dagaalkii ay ka qayb qaataan oo si dadban nimanka nabadiidka ay ugu faa'iidaystaan iyo si toosba, caruurtaas gacanta dowladda markay soo galaan habkee loola tacaamulayaa waa arrin su-aal weyn oo meesha taagan. hadda waxaana la fadhiyaa halkan wasaaradda gaashaandhigga oo ayada hormuudka ah ciidamada qalabka sida oo weliba xoogga dalka markii oo ay dagaalka lagu jiro iyo xaaladahaas oo kale caruur noocaas in gacanta ay ku dhigaan in laga yaabo, iyo CID-dii iyo booliskii oo ayagana si kale inay caruurtaas oo kale meelo kala duwan oo kale ay ka soo qabtaan laga yaabo, iyo xeer ilaalintii oo ayadana hadhowdii faldembiyeedka marka lagu soo oogo ayagana arrintood si gooni ah inay u eegaan laga yaaba. marka su-aasha taagan yaa caruur ahayn, da-dooda iyo qofkii muuqaalkiisi see lagu kala saarayaa, waa waxa loo yaqaano age verification. yacni qofka da-diisa in la sugo, yaa sugaya, seena loo sugaya. dabcan takhaatiirta baaritaan rasmi ahoo biological ay samayn karaanoo way ku ogaan karaan, laakiin askarigan oo dagaalka ku jiro
qofka noocaas soo qabta see uu u dhihi karaa qofkan waa qof caruur ah oo daryeel gooni u baahan yahay markii la fiiriyo taasa waxay keentay in wasaaradaha ay ka wada shaqeeyaan khaasatan wasaaradda cadaaladda oo ayada hormuudka ah in waxa la yiraahdo sugidda da'da caruurta mas age verification manual mas SOP waxa la yiraahdo oo xeer nidaamiye ahaan ah in la sameeyo wax badan baa laga shaqeynayay waxaan u malaynayaa wasaaradaha dhan in lagala tashtay iyo wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedka iyo wasaaradda federaalka iyo hay'ooyinka kala khuseeyo oo halkan fadhiyo wasaarooyinka marka kulankan waxaa laga hadli doonaa marka buuggaas la diyaariyey buuggaas oo markii la diyaariyo oo dhaqangal noqdo faa'iido u noqon karo hay'ooyinka kala duwan ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhig iyo ciidamada xoogga dalka CID iyo hoggaanka baarista xeer ilaalinta maxkamadaha iyo intii kale oo khuseysay ay ka mid yihiin ururada qareenada iyo legal aid-ga adii waxaa way kaalmo sharciyeedka hay'ooyinka ayagana ku shaqale inay isla ogaadaan taasna waxaa loola dan leeyahay in caruurta markii lasoo qabto xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda maskax ahaan si fiican loo fiiriyo da'dooda la ogaado kadibna la marsiyo jidka sharciga sheegayo dabcan sharci waan leenahayo oo hadda sharciga dhaqangalka caruurta da'yarta ah oo aan ku shaqeyno waa sharciga da'yarta caruurta oo hadda dhaqangal ah weli waxaa dib u eegis ku socda sharcigaas weli golaha lama geynin dib u eegisaa ku socota laakiin intii sharcigaas ka dhaqangalayo sharcigii hore u jiray ayaa lagu dhaqmayaa iyo shuruucdii kale oo dalku u yaalo dhaqan celinta waa muhim laga yaaba dad da'dooda yartahay oo kale in lasoo qabto oo dhaqan celin oo waalid xaggiisa ah iyo dembi ay galeenba in lasoo qabtaa laga yaaba kadibna la geeyo xabsiga marka ciidamada asluubta marka xabsiga ilaaliyo waxaa looga baahan yahay ayagana in maaragtay daryeel khaas ah ay siiyaan fiiriyaan wixii oo sharcigu waafaqsan yahay haddii qofkii cunugii oo si qalad ah lagu keenay meesha qaldan ay ku baraarujiyaan hay'ooyinka ku shaqale sidii wasaaradda cadaaladda oo kormeerka ku leh xabsiyada iyo hay'ooyinka kala duwan oo xuquuqa caruurta u dooda si caruurta meesha ku jirta xuquuqdooda ay u helaan marka shirkan iyo shirarka lamid aad baan u bogaadinayaa wasaaradana aad baan ugu bogaadinayaa in shaqooyinka noocan ay sii wado inkastoo marxalad wada guur la galahayo hadda kala guur ma oranayo wada guur ah la galahayo waxaa loo baahan yahay shaqooyinka wasaarooyinka inay hakad gelin oo si fiican loo shaqeeyo seminaarka noocan oo kale uu socdo shaqooyinkana oo shacabka loo qabanayana si fiican u socdaan marka kulligiin waa idin mahad celinayaa waxaan u malaynayaa waxaa laydin soo hordhigi doonaa aad ka doodi doontaan waxaa shaqadiina maalimeedka nolol maalimeedkiina iyo shaqadiina la xiriiro way waxaan rajaynayaa insha allahu inaad idinkana ka faa'iidaysan doontaan